بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo taariikhdu tahay bishii toddobadeedii 2019 waxaan meesha tan ka soo dhaweynhayaa baaqii ay bulshada iyo dhaqanku ay ku midoobeen bisha 10keeda in lagu qabto beelaha gobolka meel ka mid ah beelaha degan in yacni shir loo qabto shirweyne loo qabto baaqaas ayaan maanta soo dhaweynhayaa wax kasta oo carqalad gelinaya ka baaqaasna oo nabadgelyadaas iyo shirkaas gelinaya carqaladna waxaan rabnaa inaan beri baa kana waxyaabaha ka midka ah ee carqalada gelinayana waxaan u malaynayaa oo ay caddahay oo mala ay sahayn caddahay in uu yahay imaanti ka reeyay wasaaraha saameyn tiro badan ninkaas oo aan uga baranay inuu galmudugna burburiyo mashaariicdana u diido noloshana u diido 3 sano khayr joogay ilma ku dhashay gobolka ma seexan waxaana aaminsanahay waxa uu ku imaanay inay tahay shirkaan inuu burburiyo annagoo aayahana wali ka tashan waxaan aaminsanahay inuu ku imaanayo shirka hobyo soo socdo inuu burburi doono waxaan aaminsanahay dhacday shalay hadda gawaan ka dhacday in asaga iyo dadkiisa xulfadiisa ay ku lug lahaayeen oo nabadgelyo darradaas ay wadaan marka arrinkaas ayaan waxaan ka soo jeedinayaa in uu ninkaasi war waxbana waa ka dhimanaa war godobna wuu ka dhiman lama arko waxaan intaas kala ku darahayaa shalay dhacdadii foosho xumeed ee tuhunkeeda aan federaalka u malaynayno inay wadaan oo aan ku tuhmayno dadkii geeridaas ay ku timidna allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waan ka tacsiyanaynaa walaalkii la beegsadana waan u tacsiyanaynaa oo maxamed gafaaje ninkaas oo nin ganacsadan aan u naqano oo nin walaalkeena ah oo tirarka hobyo ka mid ah waxaan leeyahay walaalkeen bal dhibaatadii shalay loo geystay aad iyo aad baan uga xunnahay waana ka tacsiyanaynaa dhammaan intii dhibantana allah u naxariisto waxaana codsanahay beelaha degan meeshaas oo walaalaha ah war in la isku keendirayo waad ogtihiin war in shakulnayd ku bixinayo waad ogtihiin war inaad geeri sugatihiin dowladda dhexe toogasho goboladan u qortay shaksi kastoo dhaqdhaqaaqaana waad ogtihiin loona adeegsanayo dadkiini loo adeegsanayo ama dhan kastaba ha ahaatee ama kuwii maamulada federaal ku jira ha noqoto ama kuwo kaleba ha noqoto yani iska qoryoolaya meelaha iska joogo dhalinyara ha noqotee in mar walba la isku kiinbiraynhayo waad ogtihiin waxa weeye marka wartashisho feeriyata sokaha ka xisaabtanina waayahan sokiya meeloobay seenka ka arkeenee saxarka iyo mariiqa gudbaa samatir weydiin biyo war ma ahan baashu meel soka ma taalo bismillaahi raxmaani raxiim waxa aan halkan maanta uga hadlayaa ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo la sheegay inuu safarkiisa ku soo aadan yahay magaalada Gaalkacyo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya waa kii markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya noqday dagaalkiisii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay galmudug wuxuu bilaabay inuu ciidamada lacagta ka joojiyo wuxuu ka bilaabay fidno wuxuu bilaabay inuu cadaado doorasho madaxweyne dheeraada keeno aakhirkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa kii kala jabiyay labadii maamul ee ku midoobay ahlu sunna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya anigu dadkaygan u hadlaa awaanad galmudug baan ahay waxa galmudug u soo dhaxgalayna ma aha lacag ku heshid waa inaan ogaado xaaladda dalka iyo dadku siday ku sugan tahay waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo taageerayaasha galmudug waxa galmudug dumiyay waa dowladda federaalka ugu horeeyay madaxweynaha Farmaajo oo buugaag hore u qoray oo taariikhdiisa dadka dibadaha oo dhan way hayaan khayrana wuxuu u magacaabay inuu dadka burburiyo intaan aqliga lahayn iyo intaan wax fahmayn waxaan u sheegayaa galmudug wali waxa jooga dad nool dadkii galmudug ma wada dhiman inta aqliga leh waxaan u sheegayaa galmudug ha loo istaago dadkeedu ha midoobaan hadda intaan ku dhex jirno qabiil ayaa loo kala jabiyay Dhuusamareeb Cadaado Gaalkacyo ninkii sidaas ku kala jabiyay in maanta Gaalkacyo lagu soo dhaweeyo oo la yiraahdo ra'iisul wasaaraha baa soo socda ninka kabaha ka tulanaysa kabiisa eeg ninkii ku dilay oo aabaha dilo dadkaagii dilo dhuunta kugu dhagay lacagtii galmudug loogu tala galay in uu maanta laaluush ku bixiyo oo dadkaaga u kala qaybiyo
waa waxaan dhacayn gunnimo qaadan mayno waa gunnimo waxaan u taaganahay in ninkaas muxuu ahay waa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed Soomaaliya waa inay u sinaataa deegaankana wuu u dhashay wuu iban karaa wuu soo booqan karaa laakiin xilligeedii ma aha waa xilli uu dagaal nala galay waa xilli uu na burburiyay lacagtayga walaalish dadka ku kala qaybinaya midda kale shir baa noo soo socda bishii 10keeda 15keedana shir kale ka soo socda Hobyo shirarkaasaan ku kalsoonahay dawladda federaalka kuma kalsoonin dadkii iyada burburistay xamar iyada cuntay dadkii oo dhan way baabi'isay maxaa dawladnimo laga filayay waxay noqdeen laadaro dadka dila oo dadka baabi'iya qofkii ka hor jeestana xira iyo mid ay dilaan iyo mid ay lacag siiyaan oo iyaga daba jooga iyo mid maxaa iska daba jooga halli karin waan diidnay gunnimo ma yeelayna waan diidnay waan ka soo horjeednaa Soomaaliya oo dhan waa inay u istaagtaa masiirka dalka Soomaaliya xaalkeedu meel xul buu marayaa ma aha hebel ku dir qabiil ku dir muxuu ahaa hebel xilka ka rid dawlad goboleed weerar dawlad goboleed faraha ka qaad dalka galmudug waa inay noqdaan dad sharaf leh sharaftayaga iyo taariikhdan lahayn yeeli mayno in lagu tunto oo nin boorso yar wata uu ku tunto waan diidnay gobonniman ka dooran waan diidnay mana ogolin mana soo dhaweynayno xilligeedina ma aha waxa kale oo halkan tacsiir uga diraya dadkii shalay lagu laayay degmada Gamwaan halkaas oo shilkaas loogu tala galay in lagu arqaladeeyo shirka Hobyo ka dhacaya shirka Hobyo waan ogolnahay wixii ka soo baxaan taageersanay waan taageeraynaa dadka galmudug dal iyo dibad waa inay u istaagaan sida u difaaci lahayn masiirkood xamar hal la xoreeyo loo istaago wardhiig leebay ka joogan xamar degmada intii magaalada inteedii kale ma tagi karaan dekada laba canshuurood baa laga qaadaa iyaguna canshuur bay ka qaadaan nimankii kale dhalinyaraduna canshuur bay ka qaadaan halkan gaalkacyo sidoo kale ku socota hadda hal la istaago wadanka hal la xoreeyo yaa lagu mashquul ra'iisul wasaaraha soo socday ra'iisul wasaare ma aha mana aaminsan inta xaaladdu sidan tahay hadduu ra'iisul wasaare fiican noqdo oo dalka Soomaaliyeed masiirkiisa qarannimadii ka shaqeynaya waan ogolnahay xilligan xilli ka duwan anaga soo dhaweynayna laakiin ma aha maanta xilliga ninku dilay oo dadkaaga dilay inuu tacsi kuugu kala soo qayb galo waa waxaan dhacayn